hay-adda socdaalka rayidka Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay digniin rasmi ah u dirtay diyaaradda Ethiopian Airlines taasoo maalmihii ugu dambeeyay waday warar iskhilaafsan oo ay doonaysa inay ku sumcadisho hawada sare ee dalka Soomaaliya sidoo kalena waxa ay ka duuday qaar kamid ah dulimaadadeedii ee dulmari jiray dalka Soomaaliya marka hore tawadiyal ku soo dhawaada barnaamijkeena waran oo aad ku ogaad doontaan macluumaadyo waaweyn iyo baaritaan aynu ku sameynay imisa dulimaad oo dool ah oo Ethiopia leedahay iyo dulmar hawadeena imisa laga qaadaa dulimaadadaasi cala dulimaad iyo sidoo kale imisa diyaaradood ayay weecisay dalka Ethiopia khasaaraha labada dhinac kala gaadhay iyo waliba arrimo dhowra yaad ku ogaad doontaan barnaamijkeena waran bishii June ama bishii 6 sanadkii 2018 muddo uun haatan 6 sanadood ku dhawaayay dalka Soomaaliya dawladdu la soo wareegtay si rasmi ah loo furay in hanaanka dhinaca la socodka iyo controlista hawada dalkeena ay ka socod doonto kana dhaqan gashay magaalada xarunta Muqdisho muddo sanad ku dhow oo diyaar garow ayaa la arkayay iyadoo tijaabadii halkaas ka dhacday kadib markii madaxweynihii Soomaaliya waqtigaasi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu khadka tale wareynta iyo halowda uu kula hadlay diyaaradaha dalka Soomaaliya dulmarayay la xaqiijiyay laguna dhawaaqay in Soomaaliya awood u leedahay hanashada arrintaasi sida ay noo sheegeen qaar kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda socdaalka dalka Soomaaliya waagaasi waxa ay ahayd dadka Soomaaliyeed ee yaqaan aqoonta hawada sare koofra ku tirisa iyadoo sidoo kale ay jireen isku dayo waaweyn oo dawladaha qaarkood ay ugu horeysay dalka Kenya markaas ay ku doonayeen in gabi ahaanba aan la sameeynin ama aan la ogolaanin in hawada Soomaaliya dib loogu celiyo sidoo kale waxa jiray dadaal aad u xooggan oo qaar kamid ah dawladuhu ay soo jeediyeen sanad ka horna waqtigaasi dib loo soo celin doona hawada waxa la doonayay ama wax ka yar uun 2 sanadood in hawada Soomaaliya oo dhan la xiro oo la wareejiyo kadib markii laga soo dhalaali waayay heshiisyadii 2014 bilowday taasoo la aaminsan yahay in $100,000 loo qoondiyay in qalab lagu diyaariyo la lusaday si kastaba ha noqotee haatan waxa ay hawada Soomaaliya noqotay sheekooyin ka mid ah kuwa warbaahinta dunida ay qaada dhigto kadib markii warbaahinta BBC da qaybta Ingiriisiga iyo kuwa kale Amxaariga iyo Soomaaliga ayagoo huwan ah ay ku soo biireen loolanka hawada Soomaaliya lagu sumcadilayo hase yeeshee sida ay wararku sheegayaan xirfadlayaasha maamulka hawada rayidka Soomaaliyeed ayaa shaqadooda si xooggan u wata barnaamijkeena waran iyo warbaahinta Horfadhi Media Group maalbarihii ugu dambeeyay waxay geed dheer iyo mid gaanba u fashanaayeen in dadka Soomaaliyeed ay la wadaagno macluumaadka ugu dambeeyay iyo xaqiiqooyinka dhabta ah ee ku aadan qadiyada inkastoo markii u horeysay aan idin xaqiijinay in raadiyogii iyo waliba macluumaadadii ka imaanayay magaalada Hargeysa ay la mid ahaayeen taararkii Soomaalida bariisamaadka isticmaali jirtay haddana taasi waxa mar dambe cadeeyay wasiirka wasaaradda duulista hawada Soomaaliya iyo maareeyaha hay'adda socdaalka rayidka Soomaaliyeed kuwaasoo si dhab u sheegay in qof kasta uu soo iibsan karo raadiyo isla markaana intuu meel dhigto wax qarwadi karo iyadoo ay u muuqato in hadeerto arrintii ay ka socotay magaalada Hargeysa ay ku soo iibtirantay in dhaqaale aad u badan iyo lacagna ay kaga khasaartay maamulka Soomaaliland natiijo wax ku oolana aan laga gaarin haatan wuxuu u muuqdaa in dagaalka wajigiisa labaad ay wada galayaan dalka Ethiopia oo markii u horeysay ka soo dhaxadlayay Hargeysa iyo haatan dawladda Soomaaliyeed ee ayadu gabi ahaaba diidan in Ethiopia laga qaado wax talaaba intaynu baaritaanka qaybta labaad aynu wadnay iyadoo waa challenge aad ogaateen warbixino waaweyn oo ahayd in Ethiopia ay doonayso in hawada Soomaaliya gabi ahaanba xidho iyo wararka iska hor iyo daba imaanaya ayaynu waxaanu baaritaan kale ku sameynay tan iyo intii uu soo baxay waraysigii madaxa ama maareeyaha hay'adda Ethiopian Airlines uu siiyay idaacadda BBC da ee dalka Ingiriiska ka soo baxda ayaanu ogaanay in macluumaad kala soo baxeen goob iyo 10 dawlamaad oo rasmi ah ayaa Ethiopia wareejisay balse su'aasha waxa ka horeeya waxa weeye imisa duulimaad ayay Ethiopian Airlines hawadeena isticmaala kuwaasoo ah kuwa doolka loo yaqaan ama bypasska oo iyagu aan u soconin Soomaaliya laakiin dulmara xaqiijinta dhinaca mabaadi'da iyo cirka iyo xogta khaaska ee dheetada oo aynu aragnay ayaa muujinaysa in 60 duulimaad oo Ethiopian Airlines ay leedahay ay si maalinle ah hawada Soomaaliya u isticmaalaan taasi waxay ka dhigan tahay inay tahay Ethiopian Airlines diyaaradda ugu ballaaran ee hawada Soomaaliya dulmarta kastoo jiraan tobanaan diyaaradood iyo shirkado waaweyn oo dunida ah oo wada isticmaala hawadeena oo kamid ah kuwa ugu istiraatiijisan qaaradda Afrika oo dhan haddana waxa la sheegay in Ethiopian Airlines ayadu ay hoggaanka u hayso Ethiopia 11 duulimaad oo ahaa kuwa ka imaanayay inta badan koonfur bari Asia iyo qaybo kamid ah Asia oo ay ku jirto magaalada bariga fog ku taale Seoul sidoo kale Masqat iyo kuwa kale ayay diiday 11 kan duulimaad marka laga jaro waxa soo haraya 49 duulimaad haddaba markay dawladda Soomaaliya ogaatay in ay Ethiopia 60keedii duulimaad ay 11 kamid ah dhinaca Djibouti u weecisay ayaa sida aynu xaqiijinay dawladda dalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kala duwan waxay xiriir degdeg ah la sameeyeen dalka Ethiopia
taasina waxay keentay in Ethiopian Airlines oo iyadoo markii horeysay BBC la wadaagtay in hawada Soomaaliya kharbadantay sidaa daraaddeedna ay ka faaganayaan waxay ku khasabtay inay soo saaraan warmurtiyeed haddii kale dowladda Soomaaliya inkastoo la sheegay inaysan wax tallaabo aysan qaadin haddana howlwadeenada hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa ku adkaystay in ay awood u leeyihiin wali inay tallaabooyin qaadaan inkastoo siyaasadda arrimaha dibadda dalka uu hago madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya isagu uusan rabin in wax tallaabo Itoobiya laga qaado dhinaca kalena sida aynu waraw iyo waliba qaada dhigistan aynu ka ogaanay waxaanu ogaanay in dowladda Itoobiya diyaaradeedu maadaama ay aad u isticmaasho hawada Soomaaliya la siimay qiimo dhaaf tusaalahaan dhammaan diyaaradaha kale ee isticmaala hawada Soomaaliya waxaa laga qaadaa calaa duulimaad lacag u dhaxaysa $500 ilaa $450 laakiinse Ethiopian Airlines waxaa la siiyaa jeer dhaaf maadaama iyadoo ay leedahay qorka ugu weyn isticmaalka hawada waxaana loogu dhuftaa calaa duulimaad $395 taasoo ka dhigan in discountiga loo siiyay maadaama loogu dhuftay qiimaha jumladda taasoo ka dhigan inay isticmaalaan ilaa iyo 60 jeer in ka badan maalintii si kale marka loo dhigo 11 diyaaradood ee haatan hawada Soomaaliya ka leexday macnaheedu waxa weeye inay Soomaaliya halkaas ay ku lumisay $4340 oo markaasi maalinle ah taasoo u dhiganta bishii $130,350 halka sanadkiina ay noqonayso $1,564,200 dhanka kale markaynu fiirino khasaaraha iyagana dhinaca Ethiopia soo gaaraya waxaa ku kordhay saacad iyo 45 daqiiqo oo daahitaan oo wareegga loo yaqaano taasoo ay diyaaraddu ay gubayso qiimo ka badan tan ay bixinaysay marka loo eego shidaalka waxaa la aaminsan shidaalka ay diyaaraddu isticmaalayso calaa diyaarad ay ku dhowdahay $640 taasoo haddii lagu dhufto iyadoo ku dhawaad laba jibaar ka badanaysa khasaaraha Soomaaliya ka soo gaaray maalintii $4,340 ay ka qaadan jirtay 11 duulimaad inkastoo ay wali soo hareen 49 kale haddaba sidaynu ogaanay hay'adda duulista iyo socdaalka diyaaradaha ayaa waxay dul dhigtay socdaalka rayidka ayaa waxay dul dhigtay handadaad aad u weyn oo haddii Ethiopia ay diido in ay gabi ahaanba ay tafaasiil ka bixiso iyo haddii ay jooji weydo qalalaasaha iyo waraqaha qaldan ay dirayso iyo warbaahinta ay u isticmaalayso xogta hawada dalka Soomaaliyeed oo aan loo ogolayn inuu dal kale ku hadlo ay tahay qadaf aad u weyn inay keeni doonto in gabi ahaanba ay Soomaaliya ay ku amarto in 49 duulimaad kale la wareejiyo haddii si guud loo eego khasaaraha ugu badan wuxuu gaarayaa Ethiopian Airlines ayadoo marka isticmaalayso ruudadka iyo dhabooyinka caalamiga ah ee khadadka Soomaaliya ay jarayso ayaa la sheegay waqti ka horeeya xilliyada ay soo daahi lahayd gaar ahaan diyaaradaha ka imaanaya Far East ama Asia fog ama bariga Asia ay ka soo hordhacayaan ilaa iyo saacad iyo 45 daqiiqo halka ay daahayaan markii hadda ay weecadeen dibna ay ugu noqdeen Canal Suez iyo waliba sidoo kale qaybo kamid ah laba dhaxda dalalka Eritrea iyo dalka Djibouti taasoo muddo dheer ku qaadanaysa iyo isku xidhka dhinaca istiraatiijiga ah ee Ilaahay uu bogacad ahaan ku abuuray Soomaaliya taasi waxay ka dhigan tahay in Ethiopia Airlines aysan qaadi karin arrintaasi qaar kamid ah saraakiisha arrimahaasi iyo dulmaansiin aan weydiiyay ayaa waxay u yiraahdeen Ethiopia hadeerto iyadu kuma dhacdo in ay sii qaado tallaabooyin hor leh haday taasi dhacdana inkastoo aan hubanti la'aan ay tahay go'aamada uu qaadan karo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan ciduna isku haleynaynin haddana waxaa la sheegay inay keeni doonto ugu dambeyn in ayaga qarash aad u weyn u fulo isku soo wada duudu haddii ay dowladda dalka Soomaaliya ay isticmaasho awoodeeda iyo waliba gacan sareynta ay leedahay iyo baahida loo qabo dhulka istiraatiijiga ee Soomaaliyeed iyo in laga fogaado gabi ahaanba in Ethiopia ay samcadisho hawadeena waxa ay noqon kartaa iyada dharbaaxada cidda ay ku dhacdaa dalka Ethiopia haddii aan ku darno tusaale ahaan waxaa jira duulimaadyo trapela oo magaalooyinka Boosaaso Muqdisho Hargeysa Garowe iyo sidoo kale ay ku tagto markaasi Hargeysa diyaaradda Ethiopian Airlines waxaana la sheegay in duulimaadada trapelka ay maalintii ka samaysto iyaduna $10,000 qaadka ama chatka iyo waliba cuntooyin kala duwan oo Ethiopia u soo dirto dalkeena oo ay ku jiraan qutal daruuriga loo yaqaan markaasi qudaarta baradhada iyo basasha ku dar markaasi alaabaha kabaha iyo waliba wiciyada la soo recycle lagu sameeyay ama dib loo soo hagaajiyay ayaa kamid